dagaaladii ugu waaweynaa saxaabadu gashay waxaa ka mid ah xarb alqaadisiya ciraaq meeshan la yidhaahday ku taalla ciraaq waxaa inteeda badan haystay Persia dowladii Iran baa ka talin jirtay dee caasimadoodii madain waa Baghdad dhinaceedaba kama foga maadaama ay ka talin jireen markii muslimiinta iyo nimankaas Iran-ta ee majuusiyiinta dagaaladu dhex marayeen dagaaladii ugu waaweynaa waxaa ka mid ah dagaalka qaadisiya dhowr boqol oo kun oo gaala iyo 30 kun oo saxaaba ah ay sortaagan iyo intii la socotay saxaabada waxaa hogaaminaya 10 المبشرين كامده سعد بن ابي وقاص بعيدا كوطا qolada kalena waxa hogaaminayeen Rustam la yiraahdo jananadoodii waaweynay laga dambeeyay kamida marka Rustam wuxuu rabaa bal nimankani mentally siday u fakarayaan inuu ogaado wuxuu Sacad weydiistay inuu u soo diro cid wada hadal bal u dhexmaro nin baa loo diray uu soo celiyay mid kale bal ii soo dir waa loo diray saddex nin baa kolba mid u tagay صدح الصحابي هي كل بمدو تجي مثلا ميت كميدون هذين سوق قادنا ربعي بن عامر با كميدا نكن روح الربيين هنشبيو صحابه تنوت المام وحن سو ساري قاج اي دقاله دون هديت ان دقاله بخيو marka sariirtii boqortooyada meel la dhigay dabeetana red carpetiska ayaa la waday dhulaadu ballaaran ninkan muslimiinta ka socda fars yaro gaaban buu wataa waan intaasoo bilood dagaal ku soo jiray deenin ay ka muuqato adduun iyo daldalaalkii maaha Rabi ibn Amr oo farasiro gaaban wata soo baxay dabeetana markuu soo gaadhay meeshoodii buu iska soo dul eriyay faraskiisii kama degine waxay culimada taariikh sheegaan barkimooyinkii meesha teedsanaa mid ka mid u faraska ku xidhay dabeetana uu ka soo dhaadhaco xaq uu soo dhaadhaco waxay yiraahdeen boqorka saan looguma tago hubka dhig boqorka adoo hubsita looma tago wuxuu ku yiri boqorku isaga ay yeedhay anigu umaan rabine haddaan rabtaana sidaydan baan ugu tagayaa haddaydan rabina waa iska noqonaya boqorkii waa loo sheego waxa la yidhi Rustam ninkii wuxuu leeyahay anigu idinka ay yeedhay ama hubkaygaan gelaya ama waa iska noqonaya soo daayay buu ku yiri hubkiisa soo daayay isagoo wixiisii si tuu soo galay su'aal baa la weydiiyay markaa ma jaa bikum war maxay idin keenay abaar iyo gaajo iyo dhib iyo balaaya ka soo maxaa idin keenay saxari uga timaadeen wuxuu ugu jawaabay الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده ومن ضيق الدنيا إلى سعتها ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام إلهي بأن سوابحيي إن نكسر ردتك عدي ودونه الضومة هيس الضون سنة يانو إلهي الضومة ودقنه وحنوسع عن أبولين البنادم كحرينه مخلوق خلينا وأضون سن إلهي يقول إن يدتكو الضومة ونقضان ودتكو حرية هلان بحنوسع عن أبولين عبادة إلهي قاركو نقط وحنو كلاو صعن أبولي إن ندتك دوني دا عريري قاد كسر رب اللي عيدا وصاره هذا وان كان كاربتية دا عصر دكتايا عرشي قوين كفر ديا أيوه حكولة عريري قاد كاساريا عريري قوة قلبي كان دونكو قيمة وما فرديا وين كاربتية دنيا وحن كانوا كفرديا وين قيمة وما سمينش وحن كلفي عن عدالة دي مارتاي توحيد كيسي الدين تيسي وحا استاك لفع بركا وحو لي ادونك هو ربات كو قبطاي عريريغانا دوم من كا بخينايا وحان كو ساريا maxay balaca adduunkan ku geynaya buu leey waxaan kala u socdaa buu yiri diimaha dulmigooda inaan ka kaxayno islaamka cadaaladiisa ku saaro yani mowqif kale wuxuu sawiraya ninka kani walow uu meeshan ninka xoolo badan oo ka بدبركا الدنيا كغفي عن وتاغن يحي انه معتز بالدين يحي دينتيسا وخو دغانتا inaanu jirin inuu rumaysan yahay taas waxay kan sanaysaa qofkan diintiisa ilaashado ilaahay wuxuu leeyahay hatta hadii sida kale oo dhan la idin ka xog bato wala tahinu wala tahzanu wa antum al'auna in kuntum mu'minin war hal liidanina baa leeyahay murugoonina idinka koreeya hadii iimaanu jiro dad rumaysantahay rabbiga ay ku xidhantahay adaa koreeya sallallahu alayhi wa sallam oo saxaabadan reer Makka ay nabi Muhammad alayhi salatu wa salam rabbi yeesay muuqdeena
markii Bayt al-Maqdis muslimiintu ay furteen Bayt al-Maqdis ninka furanayay ciidankaasna nin kale oo 10 al-mubashiriin ah hogaaminayay Ubaydah ibn al-Jarrah ayaa ciidamada watay dabeetana qoladii masiixiyiinta meesha joogtay waxay yiraahdeen sharti ah furaha sulx baanu galaynaa saasaanu kula heshiinaynaa laakiin furaha wuxuun baanu u dhiibaynaa amiirul mu'miniinkiinu ha yimaado isagaanu fura ku wareejinaynaa sidii buu ku soo baxay Abu Ubayda Umar buu la hadlay wuxuu yidhi nimankii saasay yidhaahdeen dee haddaad noo iman karaysa kaalay Umar wuu soo baxay wuxuu rabaa furihii Bayt al-Maqdis inuu la wareego meeshana isaga furaha loo dhiibo mucaahadadii la galayna sidaas ay ku hirgasho soo socday markuu meesha in yar u soo jiray ayuu wuxuu soo maray dhul dhiidh iyo roob helay oo dhooba midhana dabeetana daabadii uu fuushanaa intuu Umar ka daadegay oo labadii kaboodna la baxay ayuu labadii kaboodna halkan ku soo qaatay neefkiisina soo hogaamiyay dhoobadiina iska soo dhex socday Abu Ubayda iyo ciidamadii muslimiinta raggii soo dhaweynaya ka hor yimo Abu Ubayda wuxuu yidhi Umarow ما تشعلن ما يصرني أن أهل البلد استشرفوك حديثك حاكم ورينيو magaalada dadkeedii madaxdeedii inay ku arkaan sidan adigoo ninkan faydan ee cagaar dhoobada kule in lagu arko maan jeceli buu leeyahay Umar eraygii wuu dhibsaday adiga ciidan awah law yaqul hada ghayruk buu yidhi Abu Ubayda waxaan jeclaan lahaa mid aan adiga ahayn inuu yidhaahdo Abu Ubayda adiga waa kaa xishoonaya buu leeyahay laakiin waan ciqaabi lahaa nin kaloo aan adiga ahayn inuu yahay marka waa ka xumay buu leeyahay law ghayruka qaalaha mid aan adiga ahayn ma warkaas ka soo baxa buu leeyahay dabeetana Umar wuxuu dib ugu noqday taariikhdoodii Abu Ubayda waa ogiyay laakiin wuxuu yara raboon isagoo amiirul mu'miniin ku muuqda amiirul mu'miniin xagga dharka iyo haybada inuu meesha yimaado laakiin Umar wuxuu ku leeyahay waxaanu ahayn inna kunna adalla qawmin dad aad u dulaysan baanu ahayn ilaahay diintan buu nagu ciiseeyo dad nagaga dhigay buu leeyahay markaanu carab ahayna dhulkaygii joognay dad dulaysan baanu ahaan jirnay laakiin ilaahay wuxuu nagu ciiseeyo nagu sharfay diinta tan haddaanu ka raadina buu leeyahay sharafta meel aan diintayada ahayn ilaahay waa na duleynaya ilaahay diin buu nagu sharfay waxaan diin ahayn haddaanu sharaf ka raadina waa duloobayna waxaynu uga dan leenahay qofku muctaz bidiinihi inuu rumaysnaado in wax ka maqan yihiin inaanu ogeyn bidhbidhkan adduunya inaanu qiimo badan ku lahayn taasi waxay keensanaysaa inuu diintiisa xoog u xejisto ilaahay isagoo nabi maxamed la hadlaya calayhi salaatu wasalaam wa min waraa'ihi saxaabada lala hadlaya waxaa la yidhi fastamsik biladii uuxiya ilayk innaka calaa siraatin mustaqiim وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون إلهي وحيدي حجسو فاستمسك بالذي وحي إليك وحي لغوسو وحي يدي حجسو وايو جد صحبات كسوغانت إبا إلهي لي جد قمان بات كتاغانت وإنه لذكر لك ولقومك قرآن كاسي وحي غاية دين تالغوسو دجينا شرف بوكوية هي أديك يطلق بابا إلهي لي إلهينا ويدين دونا marka wuxuu ugu qaalisanaa inaynan siisanin maxay wax liita man kana yuridu al-izzata falillahi al-izzatu jami'a alladhina yattakhidhuna al-kafirina awliya'a min duni al-mu'minin ayabtaghuna 'indahum al-'izza fa inna al-'izzata lillahi jami'a waxa leenay shayga koowaad waxa weeyaan inaynu qurbadan kaga baxno wixii ahlu kitaabkii hore ilaahay ku tilmaamay inay kaga baxayeen inuu kaga baxno wixii saxaabadii nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam kaga baxday inaynu muctaz ku ahaano dad ku faanaya waan qarsanaynin diinta tar inaynu noqaano